diinta islaamka waa lala jahraaya lama aamuso fasdac bima tu'maru waarid can aljahil baa la yidhi subxaanahu wa tacaala khayru khalqillaahi baa lagu yidhi wixii lagu faray la jahar oo kor u qaad baa la yidhi culamaduna warahatul anbiyaa'i wayaal culamaa warat anbiyaa nabi maxamed baa yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi in markaa dhawaqa kor loo qaado oo diinta lala jahro oo islaamka dacwadiisa la fidiya xugun laazim culamada ku saaran weeye ciddii kale marka cudud iyo marka coodilana inay difaacaan oo markaa naftooda iyo maalkooda ay u horaan waajib ku noqonaya diinta difaaceeduna ma dhamaanayo inta quraanka uu ardada korkeeda uu ka saaran yahay oo diinta ardada korkeeda lagu hayo difaaca islaamku waa taagnanaya markii quraanka la kor yeelo oo quraanka ardada laga waayo kadib baa difaac dhamaanaya inta ka horeysa waa taagnanaya xugun waajib weeye waliba haddana markii la yiraahdo jihaadka asalkiisu fardul kifaayo ahaaye hadda xilliyadan dambe markii la fiiriyo markii khawaarij ay soo baxeen dhulka sida ay ku yihiin la fiiriyo qof waliba fardu cayn buu ku noqonayaa bixasbi imkaan intii asaga u suurtagal ah inuu difaac uga qayb qaato waajib ku noqonayaa ikhwata al-izza